wuxuu ku dhashay gobolka Brooklyn ee dalka Mareykanka bishii May sanadkii 1917. wuxuu ka qalin jibiyay jaamacadda Harvard University. doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka dhacday sanadkii 1960 wuxuu ka adkaaday musharaxii ka soo horjeeday ee matalaya xisbiga Republicanka Richard Nixon. markii loo dooranayay madaxtinimada Mareykanka, John F. Kennedy da'diisu waxay jirtay 43 sano jir. wuxuu noqday madaxweynihii ugu da'da yaraa ee loo doorto madaxtinimada Mareykanka. bishii Abriil sanadkii 1961 wuxuu ogolaaday isku daygii fashilmay oo ay CIA rabtay inay ku qaarijiso hogaamiye Cuba Fidel Castro. haddaba goormuu dhacay dilkii John F. Kennedy yaa ka dambeeyay? ku soo dhawaada macluumaad ku saabsan dilkii loo geystay madaxweynihii 35aad ee Mareykanka John F. Kennedy. labadii November sanadkii 1963 waxaa Kennedy lagu toogtay magaalada Dallas ee gobolka Texas. dilkaas lagu qaarijiyay madaxweyne Kennedy waxay ahayd mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu naxdinta badnaa ee dhacay qarnigiina dhaafay. markii la tooganayay waxaa la socday oo gaariga la saarnaa gabanarka gobolka Texas John Connally iyo xaasaskooda. saacado gudahooda wuxuu xaalku u muuqday in la xalliyay wixii dhacay. kadib markii ay boolisku qabteen nin 24 jir ah oo ciidamada Marines-ka ka mid ahaan jiray oo lagu magacaabo Key Harvey Oswald, kaasoo loo qabtay dilka madaxweynaha. Oswald ayaa 2 xabadood madaxa kaga dhuftay Kennedy, asagoo midda saddexaad uu ku dhaawacay gabanarka gobolka Texas John Connally. madaxweynaha ayaa loola cararay isbitaalka. 30 daqiiqo ka bacdi waxay takhaatiirtu shaaciyeen inuu geeriyooday, halka gabanarka gobolka Texas uu dhaawacii ka soo kabtay. John F. Kennedy wuxuu ahaa madaxweyne afaraad oo Mareykan ah asagoo talada haya dhinto. isla maalintaas ayaa ku-xigeenkiisii Lyndon Johnson loo dhaariyay xilka madaxtinimada. ninkii dilay madaxweyne Kennedy, Oswald wuxuu maxkamadda horteeda ka sheegay inuusan isagu dilin Kennedy. Oswald markii laga saaray ciidamada Marines-ka sanadkii 1959 wuxuu u baxsaday dhankaas iyo midowgii Soviet. halkaas ayuu ku noolaa ilaa sanadkii 1962. kadib wuxuu dib ugu soo laabtay Mareykanka, waliba asagoo soo guursaday naag Russian ah, wuxuuna degay magaalada Dallas ee gobolka Texas. aaditaanku Oswald aaday midowgii Soviet waxay shaki badan ku abuurtay FBI-da, taasoo keentay in FBI-du dilka madaxweynaha uga shakido hay'adda sirdoonka midowgii Soviet KGB. Oswald markii uu toogtay madaxweynaha wuxuu isla maalintaas haddana dilay askari lagu magacaabo J.D. Tippit. kadib ayaa loo xiray dilkii madaxweyne Kennedy. kiiska Oswald marnaba muusan caddeyn iyo ciddii isaga soo adeegsatay. 2 maalin kadib dilkii madaxweynaha, Oswald oo maxkamadda laga soo bixiyay loona sii waday xabsiga, waxaa saxaafadda horteeda ku toogtay nin lagu magacaabo Jack Ruby, waliba si live ah. kadib wuxuu ku dhintay isla isbitaalkii uu ku dhintay madaxweyne Kennedy. Jack Ruby ayaa loo xiray dilka Oswald, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah, balse intaana la dilin ka hor ayuuba xabsiga ku dhex dhintay sanadkii 1967. dilka uu Jack Ruby dilay Oswald waxay meesha ka saartay in la ogaado runtu waxay tahay iyo ciddii soo qorshaysay dilka, gaar ahaan sababta loo dilay madaxweyne Kennedy iyo cidda ka dambeysay dilkiisa. waxayna taas horseeday in la faafiyo afkaaro kala duwan. guddiga loo xilsaaray inay baaraan dilka madaxweynaha waxay bayaan ay soo saareen ku sheegeen in Oswald uu keligiisa falka geystay, aysan jirin cid isaga soo adeegsatay. dad ayaa qaba inuu ahaa shirqool ay ka dambeeyeen hay'adda sirdoonka midowgii Soviet KGB, halka qaarkii ay aaminsan yihiin inuu ka dambeeyay madaxweyne ku-xigeenkiisii Lyndon Johnson oo markii dambe madaxweyne noqday, balse ma cadda cidda dhabta ah ee ka dambeysay dilka madaxweynaha.